موسى ونقول اسمع العمر كيف إنه هاي من قطها لقى الصومال لبس على طبعا والله لبس عليه ولا لا لكن هديه ومحان كلها سلام ويروا أن أغنى هي وحيابه وكوكعي اسمع العمر كيف إلا هدروا كجروا هديه أي سياسيين تمثلوا مجان حلكعين أي لا soo galaan deal kale miyaa taas markaa ku ahayn qaranka Soomaaliland lafjab ma hayno deal Soomaaliland ka dhinaca oo Soomaaliland la soo galay Ismaaciil Cumar Geele go'adan ku fadhinaa waan iska wareynaa sida wuxuu soo dhaceena waxaan isleeyahay xog dhan baad ka haysaa haddii ay dhacdo aniga iyo adiga oo weyn iyo sareebaan iyo cigaal nin qarannimada Soomaaliland wax kulliga ku kacay dambiil وانا انت لبادي laga qaado laakiin ma waa kulmeen waana laba noo kulmi kara maxaa diiday inuu Salmaan danteena ka hadlay Djibouti danteena si adag uga hadlay iyo inuu si leeyahay uga hadlay cadeynay ila warkoona aan isku raynaa muqaddii cad maxkamadda loo keenay Salmaan hadii ay ku cadaato ma la oran karaa warag hadalkii waracdo ka yiri magaalada Cergaabo ay sanad maabuud bay daba socdaan inay xaqiiqo tahay marka adigu laftigaagu Ismaaciil Cumar Geele leedahay wala hadli karaa oo maanta Soomaaliya xal la maraa noognahay haddaan qabaa in Cumar Geele iyo dawladda Djibouti waa hadal mooyaa aynaan wax kale aanay inoo furay Muuse sug dagaal uu ka soo dalay geeska Afrika naga Djibouti dagaal isku muqoran karo Djibouti way ognahay qarnimadeena ay diidantii waa dab qodobna ka tirsanana laakiin waxa way garteen daaf baynu ugu leeyahay haddaynu soo gardaraysto halkeed Soomaaliyadii hore ee Soomaali Republic loola jiray oo hadda noqotay Soomaaliland iyo Soomaaliya ay dhibaato iyo colaado iyo hawl ku jireen qolada koonfureed Soomaaliland nabad ma haatee aan tamar badan oo dhaqaale lahayn waxaan uga mahadnaqaynaa reer Djibouti walaalaha Soomaaliyeed meelay joogaan bas ay u gacan qabteen iyo qof kasta markuu Djibouti yimaado uu dareemo inuu guriyo taasay dad iyo xukuumadba ka sameeyeen waxaa kaloo uga mahadnaqayaa anigu waxaanu ahayd jabhadii SNM waxa markhaati madoona dadka Djibouti madaxweynahooda maanta jooga General Zakariye inay taageerada ugu badan ee nabadgeliyo iyo nololba ahayd isoo ay u geysteen SNM iyaga iyo shacabka Djibouti waa taariikh aan dafiri karin taariikhdu iyadaas qorta waa wax ku dhigan taariikhda oo waa wixii la soo haray taana Soomaaliland oo dhan maanta way idin haysaa Soomaaliland oo markaa laga yaabo in dhexdeeda colaad ka jirtay markay ka heshiiyeen ciddii u soo gurmatay ee nabadooda wax ka tartay iyo ciddii halganka markii ay dawladda dagaalamay wax ka tartayba waa la xusuusay oo waa taariikh dadku waxay soo yeeshay sheegaysa waxa kaloo idin sheegaya taariikhda da'yarta markii aanu dalka soo galnay haddaanu SNM ahayn oon guri jirin oon raashin jirin oon biyo jirin oon cusbitaal jirin oon meel askari station police jirin oo meel tuuga lagu xidhay ka wax dilaa aanay jirin waftigii ugu horreeyay dal aanu taagnay Djibouti bay ahayd aniga iyo diqsi iyo Ismaaciil Cumar Boobe Xandulle duqsi baanu hogaaminayay الله نحرته حاج حسن قلت بانو وطقناي وحو اوغلاداي markiiba maxay ku daran buu biyo la cabaan wali tayankii deeb la mashiinada la geeyay halkan ka qaad mashiinkii horeeyay leerka shay ki ahaa kambarigii hore jiray Sotelco ee isgaarsiinta ugu horeeyay waxa uu ahaa telefoonkii hore ee Djibouti ee markaa la bedelay maalinta rarnay waa taariikh taala iyadoo waxay soo haayeen oo aan la iga sheekeynay goobjoog ka aanu waxa ka horeysay